الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى خطبتي تنكور رسوحين كسو هذا الله إلا إسكدا أيو يدي لذا الدير إن لهين حسوس آخرة وعين حسوسين إن هلكن geeridii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo taasi ay ka turjumi doonto diyaargarowgeenna iyo inaan tan lagu waarayn faa'iidooyinka ku jira xagga dambe aynu ka xus insha allah iyo cibarkii iyo waxyaabaha casharada laga qaadanayo qodobo ku saabsan geeridaas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo macluumaadka ku xeeran haddaynu qaar ka soo qaadanno bukhaari waxaa saxiixiisa ku sugan inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a asxaabta khudbad u akhriyay isagoo ku tababaraya inay aakhiro u diyaargaroobaan naftiisana tusaale uga dhigaya muu caddaynina wuxuu uhi dad yahow ilaahay adduunyada iyo aakhiro wuxuu kala doorgeliyey labadaa kala dooransiiyey addoomaha ka mid a addoonkaa isaga ahi aakhiruu doortay abubakar sidiiq baa ilmeeyey xadiidka asxaabiga warinaya abi saciid wuxuu yihi waan la yaabay abubakar muxuu la ooyayaa abubakar haddii dee ilaahay uu aakhiro iyo adduunyada kala dooransiiyey addoomaha ka mid aakhiro u doortay laakiin wuu naga aragti dheeraayo wuxuu garanayay addoonku nebigu sheegayaa inuu nebiga yahay sala allahu calayhi wasalam oo nebiga markii adduun iyo aakhiro la doorgeliyey aakhiruu doortay iyo ilaahay agtiisa waxa yaalle wanaaga ahlulcilmi culimadu waxay xusaan nebiga inuu ilaahay u kulmiyey sala allahu calayhi wasalam nebinimadii iyo shahiidnimadii taana waxay u daliishadaan xadiidkii xusaya in nebiga la suneeyey sala allahu calayhi wasalam nimanka yahuudda abuu maalin ugu tegay meeshii ay deganaayeen khaybar la odhanayay way suneeyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam neefkii adhiga ahaa ee ay usoo sameeyeen ay usoo shiileen sun bay uga dareen wuu iska tufay laakiin cunaha ayay ka waxyeelaysay xaaskiisa caaishuu la hadlayay oo wuxuu lahaa suntii maalinta ay soo gaadhay hadda i kala goysay xididkaa garka wadnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa uu sii dhimanayay ayaa waxaa ku bilaabmay madax xanuun aada u badan oo dhibkiisu uu badan yahay oo sidaa uu sheegayo suntaasi ay sabab u ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xiiseynayey in guriga caaisho uu joogo intaa uu bukaanka yahay maadaama ay ahayd qof aada iyo aada ugu heela nebiga calayhi salaatu wasalaam hawshaana aada u qaban karta da-yaroo ka xoog badan dumarka kale wuxuu odhan jiray halkeen joogaa berito waa la wareejinaya markaa isagoo cadaalad samaynta dumarku aanay waajibba ku ahayn haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu cadaalad samayn jiray dumarkiisa markaa isagoo bukaa kolba xaafad la geynaya aroorta xaggee la geynaya aroorta xaggee la geynaya guriga caaishuu doonaya markay dumarku taa ogaadeenna way fasaxeen oo waxay yidhahdeen halkaad doontaad iska degi kartaa caaisha allaha ka raali noqdo iyadoo ka warramaysa geerida nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo siday u kululayd ama sakaraadkiisu u adkaa waxay leedahay markaa sakaraadku uu ku yimi wuxuu codsaday in lasoo hordhigo biyaha labada gacmood buu gelinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kulaylku uu ku batay wejiguu ku masaxayaa labada gacmood rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyay laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat towxiidka markuu ku dhawaaqo wuxuu leeyahay geeridu waxay leedahay sakaraad markaasuu gacmaha sidaa wejiga u marinaya mar kale kolka xumaddu ay kusii badaato wuxuu odhanaya hariiquu calaya min 7 qirabin lam tuxlal awkiyatuhun waxay ugu shubtaan 7 qarbad oo biyo ah oo aan waxba laga shubin ee buuxbuuxa
كعائشة وحلا ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى قف نبي محمد كحنوني حمد بطنا marka sii dhimanay cidda ugu xanuuniya xumad badnayd buu nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa nabigu kaleey salaatu wasalaam ag joogto iyaduna ka ag dhaway inantiisi Faatima radiyallahu anha oo iyaduna arkaysa xaaladda nabiga aabaheedna aad u jeclayd caruurtiisiina kaligeed kala joogto ugu dambeysayba kolkaas ay u naxaysaa waxay leedahay waa kurba abaah maxaa aabahay kurba iyo dhibaato haysa iyo xanuun nabiguna wuxuu leeyahay laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm inuu dhimanayo u sheegaya aanu ka qarinayn marka wuxuu leeyahay aabaha maanta kadib kurba iyo xanuun soo mari maayo laano maqtuu'ul janna jannada ayaa loo go'aamiyay anbiyada ilaahayna ugu bushaaray nabigo maanta wixii ka dambeeyo uu ka nasanaya kulayl iyo kurbada adduunyada saasuu ku leeyahay inantiis nabigu kaleey salaatu wasalaam iyada oo haddana xaaladda adag u marayo maca dalika yaxmil hamma dacwa haddana wuxuu xambaarsan yahay hammigii dacwadda hawshiisa u muhiimsan adduunya la dhaqiyo dad kale ma ahayna dacwadda hadiya dadka ilaahay la gaarsiiyo xaaladda kulaylka badan mid inaga mid ah wuxuu oranayaa la iska garanayo dhakhtarigay kan iyeel halkaas ay xanuunaysa cabashadii cataab ku badan lahaa isagu hawshiisi u muhiimsanayd ayuu wali fiirinaya isha ku haya wuxuu leeyahay as-salaata wama malakat aymanukum war salaada ilaaliya iyo waxa aad mas'uulka ka tihiin ee gacmihiinu ay milkiyeen haddii adoomaha iyo haddii ay xoolaha nool amaanada ilaaliya صلاتنا إلالية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إلهي هن عذروا يهود إيكوا نصارى ده كريستنك نبي ذو ذي دنتي حباله ذي بمساجد تكدل سمية واردين كتاها السمينين نبي لارين تاوان دين ديديا ودردارنا ذي نبي قبل عليه الصلاة والسلام عائشة ما وحي الله ذا مركي هذا با جريدو أي كنت ملا وسيدي من النبي جو أيوم يردار صامي مركا وحو أجا حقا سرق السقفك هرنا وحو ناقوش أجاي إن وإلهي أنبياء سدور قلي أدوية آخرة ما دام أنبياء كعلم بدين ومدة كلا كعقل بدين كجسين إلهي وأصي شيئين دمانيان حتى دماني ساي ميات كذا قاتين الدون كمسي الدون كلا قادايا ولا شيء وقت قاسان أيها وحلا بندقا ماشى وجنة كدقينا جنة دي بلا تصيا بركوا وحن كرتبت الحالة دي وناسي شيئين تهاي والكاسان إذا لا يختارون ولا هذا بنا دوران ماي كل هذه الله شيء آخره دورنا يا وحيريدي وجودا بين النبي عليه الصلاة والسلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى إلهي ويقدر أنت هذا النعمة يسدوا برواقيسي نبي يدا ورنت بدن شهداء صالحين تا إلا الرفيق الله راعنا كوا سوى نكسن إلهي ويداف أو إن حريص أو جمع في عن السراء الراعي فكانت آخر كلمة تكلم بها حتى قبض ومالت يده الشريفة أرجع ساو قدام بين نبيجا ومضنا وكتها براين توحيد قدام بيو كعنتي سيو كرو تاجا يهاس صار عضي مركا وحن كرتين ولنتي سيدي بي مركا وحكون انتي لا بين حاقنتي وذاقنتي لا بتايدا كركايجيو حندورتا انت كذا حيسي سوى كتير سنة سداو هيو geesinimada Caaisha darkaysa radiyallahu anha iyo wixii nabigu ka filayay ka soo baxday kaalintii asxaabtu aabaheedu ku jiraabay matalaysa iyada xil qaaday nabiga xanaaneyntiisii iyo hayntiisii ilaa uu gacanteeda ku dhimanay waxa uu leeyahay xaafid ibn kathiir
وعلمك التاريخ دي السيرة هذا جوا الرماه كيريد النبي وحي عليه الصلاة والسلام سندي كوبي طبنات لبيه طبعا كي بشار إلى الربيع الثاني مال سنينه كمال كاي سنين تا لما آسن مالك ثلاثنا لما آسن هبين كي أربعة الآسي عند المشهور عند الجمهور سدع علماء أيوب بديهين وحسب لو كو إيمانه النبي قمتنا عليه الصلاة والسلام تركيس الشريف كود إلهي ذا إلهي قبري قاعد عني ميسو وحينوجد بالله مركاه الدروس والعبر المستفادة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أرجنا جيرداس يلي مشهدا النبي قصي كوبان أينود المرني حين كفى إذا سنينا مركب كوبادو حين كفى إذا سنينا أن الموت سبيل كل حي جيردو إنيت نولا كستا وتضو مري ما هذا ما هو قرا وحكى السنة في كتير تاو لمنايا تاسنوا أمر لما هرانا مركز كذا تلاقى قال ذو نوحي مركي النبي قال هذا وين الرافية ولمن دونا إلهي ذا أوجه وأبوحر إنك ميت وإنهم ميتون أدنوا دمن ينوي دمن دونا ما حد مشهد هذا كيك سنة نيجا نولانا يتشوجي مركتا معناه ذو وحوي لابد من الاستعداد ليوم الرحيل ما لين كان سفرك أي نسكت تلاقى الله إن علامة تسكسي ورسلنا كلنا يعلم لما أنت وحي نوجني إنه إيمان دانو صوص عضو مالين كبها جنا لقشنا يو دركا جنا لا وريج يو لقيبسنا يو مفاتيح ذا ذي أرمها كو خاص كأنا تذكر قيبسن دارو كلا قادن دانو دوية يدت كلن هذا الكذا بداه وحلا وحي خصوصيات كاجا هاي كو جار كاها بالا قادن دونا لا وريج دونا إنه ذا ياشين كم إذا اسك عقل بدن با تذكر وحقر قرا سجون نول بيد هذا مود انتهبل الله هو النحريس تهبل تعسدي سيسوقره markaasaa la hebelow de sidaasaa la yidhi ma nooshahay runtood weeyaan buu waa runtood laakiin waxay ku yar kharibeen way soo qadimeen been bay sheegaane laakiin waa la hubaa buu inaan socon doonaa dhiman doono waxa labaad aynu ka faa'iideysanaynaa zuhduhu sallallahu alayhi wasallam fi alxayaati dunya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo wuxuu inaga duwanaa adduunyadu meel iska dhigay markaa wax dhaxalaba kama teginba waxa uu ka tagay hubkii uu ku dagaalamayay iyo dhul yaroo waqaf noqday iyo gaadiidkii uu fuushanaa gaadiidkii iyo hubkii uu ku dagaalamayay iyo yaroo dhulaha waqaf noqotay marka si aan ugu hawshoonina ugu farbaxa diinta ilaahay iyo dacwada isagu saas u doortay marka suhdu fi dunya inuu qofku adduunyada ku dhex saahidaa qiimaha ay leedahay ayaa nabigu tusaale inoogu yahay sallallahu alayhi wasallam قصة واحد شنادة إن تسنى مكر اليهود وقتلهم للأنبياء والأولياء يهود نيوان كلا يداضو عداوة دولة قرآن كعديين أنبياء قيبنا بينيا قيبنا الدلين قف كستو ونكسنو إلهي كأمر قادنا يؤدون نبواه يهودي وعدو بويه مركاتا دركتا عد يهودي الله صاحبه أما وتشيبين إيسا معناه ذو وحويان دتك السهر جدا دين إلهي دتك إلهي وأنا تأذر كيسا أنبياء دي كذا تبي لاين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يسجنا سحر بي كديان سنة وي كديان قعنا إني كدلا ويس كديان سمو قطيع سقر صامبا مركا خطرته هذا إن أمرنا ولا آمنين بقصده تاجن تتصالوت وهاي قصده إنه موتشنا يسا أن موته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب لما شهد النبي يقول لباتوين كي هو وينايا دتك مسلمين تاسوق قاري انت ادويه دا كنا ولاي وي استغنا تاسوت انه شيغا وحو اذا اصاب احدكم مصيبه فليذكر مصابه به فانها من اعظم المصائب ميدين كيدين كميده هدي دباته كتيمادو نفتيسا اهلكيسا اصحابتيسا امديسا هاي اسكو قنعيه دمشدايدي مصيبه او وين باي هيده هيراado de nabigiiba uu dhintay marka qofka ilmihiisa u barooranaya ama walaalkii ama aabihii marka tiraadee nabi maxamed badhimay miyuu ka wanaagsanaa kaagu waa inuu sabir ku qaataa sidaasay dareensanaayeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim anas ibnu maalik wuxuu leeyahay khaadimkii nabiga ahaa markii uu rasuulku madiina yimi sala allahu calayhi wasalam hijrada sanadii koobaad adaa kullu shay wax kasta wuu iftiimay isbedel baa nagu yimi
markii uu maalintaa u dhintayna adlama kullu shay xataa ankarna quluubana wax waliba markuu dhintay wuu madoobaaday ilaa annagu aanu qalbigayagii garan weyno annaga laftigayga aanu isafgaran weynay marka halkaa waxaad ka arkaysaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim qiimaha iyo fadliga iyo faa'iidada nabiga yaqaaneen sala allahu calayhi wasalam waxa lixaadoo qisada aynu ka faa'idaysanaynaa akhdu tarakati wujuubu akhdi tarakati nabiy sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed inaynu qaadano dhaxalkiis isagii dhimay laakiin dhaxal buu ka tegey halkuu tegay iyo jannada ina gaadhsiin kara haddaynu cuskanno waxaan idinka tegay buuri kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaad qabsataanna lumi maysaa ereygaasuu isticmaalaya abi hureyre intuu suuqa madiine tegay buu ganacsatadii wax kala iibsanaysay la hadlo wuxuu ihi ma halkanaad joogtaan dhaxalkii nebigana waa la qaybsanayaa masjidkaa lagu qaybsanayaa markay yimaadeenna wuxuu ihi dee cuud iyo xoola idinmaan sheegaynina waa cilmiga ah loo fadhiya xalqadahaasa ka qayb gala xooluhunbaa ku mashquulsantiina qisada waxay noo sheegaysaa tawxiidku qiimaha uu leeyahay in qofka ama ummadda caqiidadoodu ay saxan tahay oo cibaadadooda ay saxan tahay haddii caqiidada iyo cibaadadu dadka ka xumaadaan dal kasta iyo dad kasta wax faa'iido u yeelanayaa ma jiro aayahoodii wuu dhintay waana ta uu ku mitidaya nebigu salaada ilaaliya buu leeyahay tawxiidkana ilaaliyo sida nimankaasi diintii ay uga leexdeen ay u gaaloobeen yuhuuddi iyo nasaaradu caqiidadu way idinka xumaanina qubuur caabud ha noqonina idan markaa sahayda keliya halkan lagala tegayaa waa caqiido iyo cibaado wanaagsan arrimaha toddobada meelahaasa ayaa mustafaadaadka aynu qisadan ka qaadan karaynaa iyo markaynu soo ururino way iska shaqaysanaynaa adduunyada waa dadaalaynaa laakiin safar baa soo socda lama filaana aan idhaahda ee aan la ogeyn goortuu iman doono ogeysiisna aan lahayn soo noqodna aan lahayn safarka sidaas maxaa kaala gudban in alaabtu iskaga kaa xidhxidhnaato istiraatiijiyadda doonto lahaw waxaad doonto qabso dowlad iyo dal waxaad doonayso dhis laakiin dardaarankaaguna ha kuu qornaado dayntana iska bixi dulmigana iska reeb iskana diyaargarow ilaan iminkaa lagu soo heli karaa oo lagu qaban karaa taasaa inala gudban dhammaanteed allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة